بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال بعد walaalaheen ku xiran warbaahinteena hadii ahaa lahayd Facebook iyo sidoo kale YouTube muuqaaladeena waxa ka daawan doontaan insha Allah taala Facebook iyo YouTube labadaba waxaan idinka codsanaynaa inaad muuqaalkan sii faafisaan waxaan muuqaalkan idinku soo bandhigi doonaa hadii Allah uu raalli ka ahaado mid ka mid ah dhalinyaradii yaryarka ahaa ee kooxda al-shabaab ka tirsanaa oo si degdeg ah u muuqanaya inuu ka mid ahaa gurmadkii ama ciidankii gurmad ahaan loogu soo qaaday gobolka Hiiraan ee laga soo qaaday gobolada kale ee ka taliyaan kooxda argagixisada al-shabaab sida gobolka Shabeellada Hoose oo gacanta lagu soo dhigay waa nin dhalinyaro oo daayar ah oo la marin habaabiyay runaantii lana soo qabtay isagoo sheegaya in wax yar uu joogo gobolka Hiiraan kooxda al-shabaab Hiiraan waxa kaga dhacay wax aad u weyn iyo markaasi wax aysan maleynayn kacdoonkii gulufkii colaadeed ee shacabka Soomaaliyeed ay ku qaadeen kooxda waxa lagu tusay tabartooda iyo awoodooda yarta ee fudud waxaana sidoo kale hadda socda dhaqdhaqaaqyo ka socda gobolka Galgaduud barigiisa iyo sidoo kale koonfurta gobolka Mudug oo la rajeynayo in argagixisadu ay markaasi la qaadsiin doono wadada mid wadada gobolka Hiiraan lagana saari doono dhamaanba gabi ahaan deegaanada ka haystaan Galmudug sidoo kalena gobolka Hiiraan ayaa la filayaa in laga xoreey doono gabi ahaanba kooxda argagixisada al-shabaab iyadoo markaasi loo sii gudbi doono gobolada kale sida Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose iyo gulufka macmuusley oo garab ka helaya ama ay kaabayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala gedisan oo saraakiishii ugu sarsareysay ciidanka sida taliya Odowa taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale taliyaha ciidanka dhulka General Bixi iyo sidoo kale maamulka gobolka Hiiraan oo Cali Jeete uu kamid yahay saraakiil kale ayaad moodaa in ay gulufka lagu baacsanayo kooxda argagixisada al-shabaab ay hormuud u yihiin iyadoo deegaanka ugu dambeeyay laga qabsaday shalay uu ahaa Booco laguna khasbay in kooxda gaadiidkii baabuurta ay wateen ay webiga ku guraan kooxda naflacaariga al-shabaab kadib markii ay waayeen meel ay kala baxaan muuqaalka ayaynu idin soo bandhigaynaa daawadayaal kadib ayaynu insha Allah falanqeyn yar ka dhiibanayna haddii Allah uu raalli ka ahaado waxaan ka codsanaynaa inaad ka qayb qaadato halganka gobolka Hiiraan markaasi iyo guud ahaan gobolada dalka sida Galgaduud iyo haddii aad dhaqaale uga qayb qaadan karto haddii aad uga qayb qaadan karto furinta inaad tagto oo aad ka dagaalanto oo aad awoodeeda ama qalabkeeda haysato iyo sidoo kale haddii aad markaasi uga qayb qaadan karto hiilo kale sida social media iyo warbaahinada sina share garaa muuqaalkan oo u heeli shacabka Soomaaliyeed waa tahay daawadayaal aynu ku soo dhawaano magaca محمد يره محمد عبد إسحاق سفعني فين كل شوف محمد يره محمد عبد إسحاق محمد ورا صديقي محمد يره محمد عبد إسحاق محمد يره محمد عبد الساق دارشada diita إيل intee ka timid markii hore shabeellada hoose aba hooyada manuli kori fiir adiga ha aba hooyada manuli intee ka soo carartay adoo fiirna ilaahdan intee ka soo carartay ii sheeg oo xaafadiina waa intaa xaafadeen shabeellada hoose gobolka shabeellada hoose gaar ahaan buurdan ma waxa la shaqeynaysa kooxda argagixisada al-shabaab ayaga isoo wadan ha qoragaadii booskeeda awe ayaga qaatay nimanka dawladda qaatay diyaaradda markii shalay ku duqaysay adiga yaa kula socday ani rag badan rag arata waa dhuman meesha loo waday ma aqaan ragii kale waa dhumeen adiga marka qoragaadii markii dawladdu qaato waa soo carartay meeshaan al-shabaab ku ogaada soo admiya wallahi ma ku arwaasday gaaja ku isaaniyo ciidamada isku diibnaa ciidamada isku diibay ayaga ku badan dalka difaac gaajina ku isa daraad hal mar maad nala si laba nin dhalashadaada marka iyo deegaanka aad ku dhalatay hadana ay leedahay shabeellada hoose aan dhalashada tamahano aqoonsigaad ma wadataa aqoonsiga xarakada aad ku leedahay shabaab aqoonsiga ku leedahay ma wadataa daraad nala keenay waa baasan soo nala soo keenay waan soo daraad ma lagu keenay daraad nala keenay daraad marka magaalada laga soo qaaday gaar waa insaaban gaar marka saas waa insaan anigu uga go'ay nala soo qabteeno waxa ii sheegtaa intee baaburka laga yidhi marka lagu soo qaaday webiga nala soo meelaha marka dawladdu inay joogto ma lagu sheegay maanta maxaa ku jiray gaaja naf wallahi bi waa marka waxaa sidaaniyo idan inta shirkadana fiir idan dawladda jirta isku dhigay gashino gaaja ku haysa inta hooy ku muddo aabu guda nin kuwi waa kaasa dhiganayo isku dhigay gay dawladda haye ayaga si karab fiirinay gadda qolgaadi bashkadi dawladda kaasay marka meesha la digu boqayna magaceeda sheeg aniga markuu meela ku jirni safari meela ku jirni markuu dur ku jirni haye marka waa nala soo waday dursi nala soo waday dadka loo galay haye marka waa la duqeeyay haye
واسكو أنا كده بقى كلا رد مرة والله صور ساسوي والله يدله منها طيب ودر بيمرتا منها طيب ودر والله أيوة كسيننا بيو مركا يا أنت مهدو والله ما والبيئة ما هاي درات أقدر wiilkaas Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah wuxuu galabsaday si jirin la marhabaabay la yiri walaalaha oo Soomaaliyeed ayaad ku jihaadaysa runaantii aad baa uga xunnahay dhalinyarada Soomaaliyeed la khaldayo ragga khaldayana ay guryo ay hoosta ka soo xirteen ama ay dhulka hoostiisa ay ku jiraan oo ay markaasi nolol ay ku nool yihiin caadi oo khudaar iyo cunno caadi ay cunayaan laakiin cid ay xaabada ku shubayaan oo ay shidanayaan ay markaasi inay tahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaad ku jihaadaysaan waa walaaladiin waa dad Soomaaliyeed ee la dhashay jihaadna lama dhaho waxaas kooxda argixisada al-shabaab inay marka hore jihaadaysa ku socon wadiiqa khaldan ee ku socoteena gudoomiye cali jeetaa sheegay oo goob kasta oo la isku fara saaro daqiiqada ayagu joogin bay ka baxayaan godadkii ay qoteena cali waayay oo xataa isku aamin waayeen oo loogu daatay oo dadka waxa weeyaan dad careysana xataa midiyo ugu daatay godadka halkaas ayaa waxaa ka cad baadil inay wadaan qofka jihaadka ku jira duburta ma jeediyo ama dhabarka ma jeediyo cararka ayaa mararka qaarkood cadaab lagu mutaa qofka jihaadka ku jira ama dariiqa xaqa waxa weeyaan ma baxsado dad dhif iyo naadir oo ay isqarxiye ay dhaheen oo intay soo siiyeen daawooyin iyo sixir iyo balaayo ma ahane intooda kale fool dagaal loo galay waxa weeyaan cid iskaga dhici karaan malaha gobolka Hiiraan hadda markay ku jabeen oo intaasoo jeer inta la isku fool saaray ay jabeen waxay bilaabeen wadooyinka inay dadka masaakiinta shacabka oo wax ay galabsadeen iyo wax ay ka haystaan aysan jirin inay markaasi ay u miinayaan wadooyinka oo wadooyin badan sidaas ay qarxiye iyo uga aasaan taasoo galaafatay nolosha muwaadiniin Soomaaliyeed oo waxba galabsan marka dadka Soomaaliyeed maanta maalin ay ka dhowdahay malahan wallahi maanta maalin ay ka dhowdahay is jirin dadka Soomaaliya ku dhaqan khaasatan dadka ku dhaqan waxa weeyaan koonfurta Soomaaliya ama qaybta Talyaanigu ilaa waqooyina dhibaatada way gaartay maalintii sanaag ay ahayd wixii ay qarax ka geysanayeen laascaanood waan ognahay inta dad ay ku laayeen inta qarax ka geysteen alla ilaahay goobo dhif iyo naadir ayaa ka bad qaba goobahaas dhif iyo naadirta oo dalka guud ahaan waqooyi koonfur ka bad qabana dadkoodii hadee waxa weeyaan Muqdisho ayay ku saameeyeen qaraxyada iyo dhibaatada ku saameeyeen marka oo dad ay kaga dhinteen dabcan oo meesha caasimadda ummadda oo dhan ku soo hirtay warnimankan waxa weeyaan dadka waa laayeen oo waxa weeyaan muqaawiirtii iyo waxgaradkii iyo dhaqankii iyo siyaasiyiintii iyo bulshada labeenteeda ganacsatada madax duub ay nafta uga qaadeen intaasoo dumar ay asay u saareen intaasoo dumar ay ka hoysiiyeen intaasoo ciyaar ay agoonayeen intaasoo dad ay nolol muxuu ahaa waxa weeyaan qurux badneedo intaasoo qoys ay nolol dhisan oo qurux badan oo waxa weeyaan ay u bedeleen goblan iyo asay iyo gurmada u bedeleen intaasoo bulshada iyo intaasoo qoysas ah ayagoo nolol fiican ku nool dabaqada dhexa waxay badeen inay sabab noqdaan kadib markii aabihii reerka ay intay dileen caruurtii waxbarashadoodii iyo noloshoodii iyo biilkooda cid ka faara qaada markii la waayay intaasoo hooyooyin waayeelaya aabbayaala awlaadii ay soo koriyeen ay kusoo tacbeen oo maanta wax tari lahaayo u shaqeynayo wax tarayo gacan qabanayay ay ka dileen oo goblan iyo guri madow ay badan yihiin dhalaan waxa weeyaan Soomaali inta ayaga ka reebay intaasoo qoys oo markii hore agoon ahaayo aabiya ama tii alla ku imaata ama dagaal suuqaya ku dhinta ama ayagu hore u dilaanay hooyadii oo soo hartay suuqayaan u gadaysa ay qarax inta ugu dareenay halka ku sii dhimatay hooyadii markaas intaasoo caruur rajo iyo agoon ay noqdeen oo qaraxyo iyo balaayo ayagu soo maleegeen ay ku baabeen wax ay noo reebteen malahan Soomaali labeyntu waa ka baabiyeen waxa dadka dhan waa dileen qof walba wallahi inaad taada dhaafayn kacdoonka maanta bilowday armay wanaagsan tahay intii hal nolol qalan lahaa oo saddexdii dibi Soomaaliya aan noqon lahaydeen oo dibiga caday dibiga madooba iyo dibiga waxa weeyaan muxuu ahaa guduudka aan noqon lahaydeen armaan hal mar shabaab waa hadda ugu bataan waxa ay 10 kun oo ciidan kama badan ciidankoodii amay wanaagsan tahay hal mar inaan nimanka intaan gacanta saarno dagaalka maanta socda toos loogu waxa weeyaan loo wada galo qof walba oo meeshiisa kii dhaqaale awooda kii waxa weeyaan muxuu ahaa maal huri kara kii nafsada huri kara kii waxa weeyaan wariyanimo ku difaaci kara kii baraha bulshada ka soo taageeri kara kacdoonka socda armay wanaagsan tahay maanta inaan nimankaas waxa weeyaan waa liiceen waa jabeen waa soo qayliyeen waa cataabeen waa nafbax waa dhiig bax intay waxa weeyaan dhaawacaysa ka raysan armay wanaagsan tahay afka si fiican ciida loogu sii gariyo waa wanaagsan tahay walaalayaalow mujaahidiinta ku jira furimaha hore galguduud Hiiraan muxuu ahaa mudug باي بكل دمان مشاهدين الصوماليين كعي مع مسلي يعيد مدح حق دلك معينا أنها قرب كنا أنها إلهي هذي لجرو
cadowga ummadda Soomaaliyeed diinta ka been sheegtay dadka abaaraysan xoolahooda intay waxna dhacaan ceelashana ka gubay ceelasha lagu soo horinay gurihiina dabka ka qabatay ilaahay inuu jabiyaan rajaynayna insha Allah muuqaalkan waa ammaan kugu yahay ama waajibaad fadlan hadda intaan la soo gaartay si share gare la wadaag saaxiibadaada. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.